kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku soo qaadan doono madal ay isku arkeen dad aad ugu kala duwan fikirka siyaasadeed ee Soomaaliya oo ka dhacday magaalada London. madashaasi ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Somali Peace Council golaha nabadda Soomaaliyeed oo lagu aasaasay muddo 6 sanadood ka hor magaalada London. iyadoo dastuurka u degsan ururkani uu sheegayo in mas'uuliyiinta hogaaminaysa ururkan la soo doorto labadii sanaba mar ayay munaasabadani ahayd xil wareejintii saddexaad ee ururkan oo ay xilka kula kala wareegeen gudoomiyihii hore Colonel Mahmoud Dalab iyo Ambassador Cabdiqaadir Xooshow oo loo doortay inuu labada sano ee soo socota hogaamiyo Somali Peace Council. halka wariye Maxamed Yaasiin loo doortay gudoomiye ku-xigeenka ururkan Somali Peace Council ayaa Colonel Aadan Shirana loo doortay xogayaha guud ee ururkan. heer qaran Soomaaliyeed madaxda golaha nabadda Soomaaliyeed Somali Peace Council akhyaarta kale ee odayaasha iyo ururada Soomaaliyeed taageerayaasha Somali Peace Council dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay madashan bilicda san ee quruxda badan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. shirkan oo uu gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee Somali Peace Council wariye Maxamed Yaasiin oo ibafuray shirka kadib ayaa halkaasi waxaa khudbado kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay madashaasi oo inta badan khudbadahoodu diiradda ay saarayeen xaaladda siyaasadeed ee haatan uu dalka ku jiro. waxaan qabaa waxa weeye Soomaaliya dhibaatada maanta haysata waa aan iraahdo qabiil shalay qabiil baa la isku leeynayay maanta qabiil ma jiro xaqiiqadii waana nasib wanaag waxa jira maanta waxay kooxo caloosho shaqaystayaal ah dalkina lagu burburinayo. musalsalku wuxuu jiri jiray waxaana la oran jiray dalku wuxuu ka degi la'yahay 91dii USC uu ka degi la'yahay baa la oran jiray. waxba ka jiray USC waa ka wareegtay waxa ku wareegtay hogaamo hebel iyo hebel hogaamay ku wareegtay inaga USC waxaan niri hogaamadii ka degi la'day niman hogaamiyaha baan helay hogaamadii waa wareejiyeen waxay yiraahdeen waxay ka degi la'dahay shabaabka iyo culimadii. ahlu sunna wa jamaa waxay idin haysaa walaalayaal anoo gabayga u gudbi doona dagaal u diyaar garooba haddaad nabad rabtiin. annaga xisbiga ha noolaato urur baan hadda cusub dhalinyarada u badan waxaan u weynahay cidiga weynabaan waxaan leenahay wixii qori wato ama dowladda kumeelgaadka ahaada ama xisbul islaam ahaada ama al-shabaab ahaada ama xisbu ururkii ninka wakiilka ka ahaa al-sunna wa jamaa ahaa aan wadaada ku ogaayana haddii dadka la wada laayo maxaa hadhaya Soomaali ama laatan waa maqlay qurux badan waa la baxday laakiin meesha laga rabo dadka dhammaan in aan yeelano geesinimo aan isugu nimaano oo aan miiska ku wada hadalno taas ayaa waxay keeni kartaa in Soomaali go'aan ay xor u tahay ay hesho. sababtuna waxa weeye ninka sabab dalka inuu dago uu rabaa wuxuu rabaa isaga is own terms inuu ku dago. waxay ila tahay inta maanta haysata qoriga hadday tahay xisbi islaam oo aan magaciisa ku hadlayo hadday tahay shabaab oo al-qaacida maxaan ku wadaa ku kaban hadday tahay maxaan ku wadaa dowladda ku-meelgaarka oo Maraykan ku kaban hadday tahay xisbi islaam aan magaciisa ku hadlaayo oo maxaan ku wadaa militariga ku kaban hadday tahay maxaan ku wadaa ahlu-sunna wal jamaa maaragta ku kaban haddii ay tahay waxay ila tahay in aan xal uusan gacanteena uusan ku jirin inuusan xal gacanteena ku jirin oo aanay go'aankeeda lahayn Soomaali ee nala leeyahay go'aanka Soomaali inaysan kaliya tahay oo nala leeyahay. halka kana daa waxaan maqlaynay in xisbiyo badan la isugu keenay al-sunna iyo حزب الإسلام هو شيء إبتكي مو حزب الإسلام لندن كهذا كله مقال أنا ما دل هرك نيجي تذكر بريها دجال كلها أنا واحد إسلاي يريد نيجي هذا يريد وكاجا ورا داعي في واحد معه هو أفقدون نيجي دولة هانشري يكوا حقرحنا يكمل كلكي وحبوط كوبا حياة سيولي الشيء كانوا حلقة دورية دمان تونا ما أفضل أما دولة هانشري أما ها هذا يمكن
nabadgelyadu dhalan maysa ilaa ay dhammaan la isla qarin in waddanku la wada leeyahay dhallinyaradayni from 1614 ilaa 1820 xabsay ku wada jiraan waa lumeen ma la sugaayo waa ogtihiin waa la socotaan generationada dibadda joogay ama Canada ha joogeen ama Australia ha joogeen ama England ha joogeen meel kasta ay joogaan waa zero dalkii kuwa joogay waxna xabad baa leysay wax baddi bay ku dhamaadeen war inta u fakarno gacmaha la isqabsado la tashado maxaa program soo uga tagnaa ummad kale ayaa Soomaali baabiinaysa war kuwa la leeyahay amal shabaab amal shaydaan amal wax kasta lagu sheegayo dadkay ka dhasheen one of us way qof aan la hadli karin ma jiro qof walba gacanta la soo qaban kara siyaasadda waa la isaga soo horjeedi karaa laakiin hadda waxay maraysaa meel xun bay gaartay dalkana dambaa laga leeyahay igama dhigayo ridiin dalka dambaa laga leeyahay dowladaha waaweyn oo nagu involvedka ku ah shaqada aanay laftoodu daacad ma aha kuwa dariska ah daacad ma aha waxaa lagu shaqaysanayaa anaga weeye anaga qudhayna lagu kala shaqaysanayaa gacmo dhowr madaxweynaha ka dhigaynahay mucaarado dowladda diid baa leeyahay Soomaali waxa uu qaban karaa wafaan darajada rabin lacagna rabin dhaqaale qofaan rabin darajada rabin see waxa lagu badbaadiyaa way su'aasha waxaan soo gaaray Soomaaliya toos isku tiirsada hadba kiina taageera weligii hal keliyaan in farayaan Soomaali hadaynu nahay ninkii urur ku jira dhalinyaraha ku jiro mad kala ha noqdo nooc kasta ha noqdo aan isu nimaano intaas ka wanaagsan waxaan in iska badayno waxaan odhanayaa dadka haday wada marino badaqaan bargaajo dhamaadaan hooyadii intii gurigeeda ka carto geedastii ku dhimato iyo ilmaheediina aad xukumi ismi kasta baa haw yad xukumaysa wada badeeni marka waliba way maraya dawlad waliba iyada marka wadata badii baa cadaan loola tagay lagana ciishoone badayada qalad ayaa laga galay laakiin waxaan leenahay walaalaha geesiyaasha askar badeeda waxaan leenahay noolaada Cabdulqaadir Xooshow waan u dooranay labada sanadood soo socota inuu gudoomiye u noqdo Somali Peace Council aan hortiina ugu wareejinayaa qaybihii Somali Peace Council ay ka koobnay oo ahayd gudiyada kala duwanaa walaal waxaan ka codsanayaa inaad iga gudoontid xilka culus ee maartay aan ku soo wareejinayo Quando eu prefiro que eu estudo lá está uma câmera da rádio, eu estou intaasi kadib ayaa waxaa madashaasi khudbad dheer ka soo jeediyay oo dhinacyo badan taabanaysa gudoomiyaha cusub ee Somali Peace Council Ambassador Cabdulqaadir Xooshow oo isagu ugu horeynba u mahadceliyay dhammaan taageerayaashii dadweynihii ururadii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay xafladaasi xil wareejinta ahayd aad iyo aad loogu Somali Peace Council labada lamaane lagu afduubtay waddankeennii Britishka ah oo runtii wax dambi ah oo ay galeen aysan jirin inaynu cambaarayno waalihii falkaasi ka dambeeyay oo waliba ka codsanayno inay iska sii daayaan maadaama ay yihiin laba ruux oo iska rayid ah oo doonayay markay noloshoodii xorriyad garoobeen inay maaragtay xoogaa soo dalxiisaan in halkaa lagu haysto waliba waxyaabo dhaqanka muslimka aan fiicnayna in nin naagtiisa laba meel lagu kala hayo dhaqan ahaan looma fiicno haddaan ummadda Soomaaliyeed in ummadana aan u istaagno labada ruuxna aan u istaagno sida aan uga qayb qaadan lahayn soo deynteeda walaalayaal waxaan leeyahay Soomaaliya tooso Soomaaliya Ilaahay nabad ha u keeno mujtamaca Soomaaliyeed ee baaba'san ee meel walba adduunka maanta joogana kuwii qalbigooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala burcada isku mariyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh